maayirka degmada Ooga Cabdinaasir Cabdisalaan Ibraahim Shire Afrikaani iyo ku-xigeenkiisa Cabdi Iidaan Jaamac oo maanta si gaar ah ula hadlayay warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay qayladhaan ba'an ka soo saareen abaarta ba'an ee ka jirta deegaamada degmada Oog taasoo tilmaameen haatan marayso halkii ugu xumayd isla markaasina ay khatar ku jirto nolosha dadka bini'aadamka ee ku dhaqan deegaankaasi. maayirka iyo ku-xigeenka degmada Oog waxay qorbajooga xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ah ka codsadeen si gurmad degdeg ah loo soo gaaro shacabka ku dhaqan degmadaasi iyo dadka reer guuraaga oo haatan ay tilmaameen in noloshoodu ay khatar ku jirto. xaaladda degmada guud ahaan waa nabadgelyo runtii iyadoo ay jiraan xaalad adag oo yacniga abaarada ay jirto xaaladuna ay meel halkii u khatarsaneed ay marayso. ilaahay baan horta marka hore ka rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ina soo waraabiyo. runtii waxa weeyaan waxaa ka jirta degmada baahi aad iyo aad u weyn baa ka jirta oo haraad baa ka jira, waxaa ka jira cunto yaraan baa ka jirta, waxaa ka jira xanuunaa ka jira. hadda miyiga oo dhan waxa weeyaan waxa laga soo sheegay dad aad iyo aad u liita. runtii waxaa ka jira dhowr kaam oo barakarayaal ah, midkiiba waxaa jooga 550 ayaa jooga qoys oo barakarayaal ah oo xoolii ka dhamaadeen. waxa hay'adu wax gaarsiina waa boqol qoys. intii kale waxa weeyaan way qatan yihiin. wax ayaan baryahan soo gaarina ma jiraan. runtii xukuumaddu aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, way dadaashay. marka waxaan xukuumadda baaq dheer ugu diraynaa in wixii la kari karo iyadoo xukuumaddu dadaashay oo hay'ad badan ay soo dirtay, haddana waxa weeyaan wali baahidu waa halkeedii. waxa wax loo qabtay degmada Oog iminka waa 200 oo qoys ilaa 1500 oo qoys baa hareeraheeda degan. waxaan kaloo halkan baaq la mid ah ka u diraynaa jaaliyadda reer Oog inay gurmad degdeg kama hayno jaaliyadda gurmadkii loo baahnaa kama aanan helin wali. waxa weeyaan jaaliyaddu waa inay degdeg gurmad waa last time baa lagu jira. ilaahay baynu ka rajaynaynaa ilaahay naga qabaarta naga qaado, laakiin jaaliyaddu waa gurmadkii loo baahnaa lagama hayo. waa gurmad degdeg jaaliyaddu ay samaysaa. anigoo ah gudoomiyaha degmada Oog sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenku saaka halkan waxaanu ka diraynaa qayladhalaantaasi waxa weeye mid noo muuqato ka taagan deegaanka Oog iyo nawaaxigiisa. xaalad adag baa ka taagan oo ay ugu daran tahay biyo la'aan. waxa weeye biyihii macaanaa awal waxa weeye foostada biyaha macaan burca laga keenaa waxay ka maraysaa 50,000 oo shilinka Soomaaliland. waxa lagu ladnaa biyihii qalaadha ceel hal bixisay la yiraahdo oo ku yaala halka ciidanka taliska ciidanku degan yahay ayaa biyo laga dhaasan jiray. waxa ugu daran isagii ceelkii biyaha qalaadha laga gaashay dhaasan jirayna wuu go'ay. ilaahay baana xaaladda horta degmada iyo dadkaba Soomaaliland baa abaarta haysa. ilaahay baa ka saari kara. ilaahay baynu cabanaynaa alawalka horeey. waxaanu qayladhalaan u diraynaa madaxweynaha iyo xukuumaddu way shaqaynayaan sida ay dadka loogu gurmanayo, laakiin waxa kala batay abaartii iyo xilliga lagu jiro iyo oo wadankii oo dhan abaartkooda biyo macaan iyo cunto waa u baahan yihiin. waxaanu leenahay il deegaaraha lagu eego xaaladda aan noo muuqatay aanu ka qaylinay. waxaanu iyagana baaq u diraynaa qurba joogta ka soo jeeda degmada Oog. waxaanu leenahay gurmadkii laydinka baahnaa laydinkama hayo. haddaad tihiin qurba joogta degmada Oog u dhalatay waxaa laydinka doonayay dadaal dheeraada inaad samaysaan oo dadka loo ogaado. baaqan culus ee ka soo baxay maayirka degmada Oog iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxay qayb ka yihiin qayladhaan istabajooga oo muddooyinka u dambeeyay ka soo yeedhisay guud ahaanba deegaamada gobolka Saraar, taasi oo laga codsanayo guud ahaanba qorbajooga xukuumadda Soomaaliland, hay'adaha caalamiga iyo cid kastaba inay gurmad degdeg la soo gaadho shacabka deegaamadani kuwaasoo haatan xaaladooda nololeed ay meel halis marayso. Jaamac